Ku soo dhawow Sahan Side Channel oo kaga bogo maqaallo ku raali geli doona. ما تقانا سورة ودغان ثلث القرآن صدح ميلود marka quraanka laga dhigayo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam laba iyo toban saxaabi ba ka warinayo kala nooca abi darda wuxuu leeyahay ayajis ahadukum an yaqra fi laylati thuluth alquran nabiga uu yiri war midkiin miyuu ka caajisaya maalintii inuu akhriyo quraanka thuluthki saddex dalool wa kayfa yaqra wa ilahi rasuulkiisa thuluth alquran loo akhri karaya bay weydiiyeen قال قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن من المخلوق قل هو الله أحد وحول ما محي قرآن كصدح ضلال بقول ما بكل النبي عليه الصلاة والسلام بخاري نيسنوح أبي سعيد كورنيا نمو مغلي أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد نمو مغلي كلا قل هو الله أحد وكل العلنية وحيد هذا وقتادة بن النعمان سامعنا وابي سعيد كان لفتي سيد هذا لبدنا قرابه مالك هاي هبين قل والله وضبوا مغلى هبين ودن اخرنيا دبتنا markii waagu bariyay buu nabiga u yimi عليه الصلاه والسلام uu sheegay nin baan xayta maqlay qul wallahu wada kaanhu yataqala mana uu yaraystay waa la fududaatay ninkan qul wallah ma quraanka akhriyaa qul wallah ibn kaga celcelinaya tilmaamay markaasuu nabigu wuxuu ku yiri walladii nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluth alquran qul wallahi hada adu fudaysatay doodaysa inuu wax yar akhrinayay wuxuu dhigmaa buu ku yiri nabigu alayhi salatu wasalaam thuluth alquran buu dhigmaa